munaasibadan ayaa ahayd mid ay ku qalin bedelanayeen ku dhawaad 50 arday oo ka baxay dugsiga sare ee Gatway magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waana dufcadii labaad ay ka baxaysa dugsiga sare ee Gatway. Dugsiga Gatway ayaa ka mid ah dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Laascaanood waxa uu dugsigu ka mid yahay dugsiyada cusub ee dhawaan laga hirgeliyay qaybta sare magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo haddana ah dugsiyada ugu tayada sareeya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. munaasibada qalin bedelashada ayaa waxa ka soo qayb galay waalidiin maamulka dugsiga Gatway aqoon-yahano mas'uuliin ka kala socday jaamacadaha magaalada Laascaanood. munaasibadan qalin bedelashada ayaa waxa ka soo qayb galay waalidiin maamulka dugsiga Gatway aqoon-yahano mas'uuliin ka kala socday jaamacadaha magaalada Laascaanood waxayna dhammaan mas'uuliyiintii hadalka iskaga dambeeyay ee hambalyo iyo bogaadin u direen dhammaan ardayda maanta dhamaysatay dugsiga Gatway ee magaalada Laascaanood. ugu horeyn maamulka dugsigaasi Gatway ayaa ka hadlay marxaladaha uu iskuulkani la soo maray ardaydani maanta qalin bedelanaysa. Gatway waa iskuul tayo leh waa iskuul ka mid ah iskuulada ugu tayo roon buu ka mid yahay asaaskiisa waqtiga la asaasana waa la soo sheegay laakiin ballanteenu waxay tahay iskuulada Gatway dhammaantood labada primary iyo halka secondary waa 13kii SYL iyo 26kii June oo maanta ah anigu farxad gaar ahaaneed bi igu reebisaa arintaasi waxaan u hambalyeeynaa waalidiintii ku soo tabcay ardadaasi ee soo gaarsiiyay maanta heerka iyo maqaamka ay joogaan waxaan u mahad celinayaa dhammaan cid alla subhanahu wa ta'ala ka soke cid alla iyo cidii ka qayb qaadatay ardadaasi caawintooda iyo wax u tarkooda iyo guuleysigooda iyo sidii horumar adduunyada aynu joogna maanta oo la qabsan lahaayeen. dhankooda mas'uuliyiin tiro badan ayaa hadalka iskaga dambeeyay iyaga oo dhammaan hambalyo iyo bogaadin u diray ardayda maanta qalin bedelatay. haqawadin adeer iimaanso ragga qurxaha badan iyo gabdhaha qurxaha badan wardiku isguursada oo jooga adeer maxaa ka maqan adeer maxaa ka maqan adeer maxaa u taariikhaysa maxaa u taariikh waalid baan ahay 35 sano ka hor baan la ii qabtay xafladda maanta la ii qabtay qof aan dhali karin uu fadhiya xubniga isfariiqo qof fadhiyo qof aan dhali karin odayga ninka odayga baan isleeyahay weyniya inaan ka soo qayb galo xafladda qalinjabinta dufcadda labaad ee ka qalinjabinaysa Gatway Secondary School runtii aniga dareen gaar ah leh ardaydana ay yihiin ardaydii noogu yimi inta badan nala soo dhiganay College Future Technology runtii tilmaamo badan ka bixin doono Gatway sida waqtiga sanadkii hore waxa ka baxay 13 arday maanta halkan markaan ku hadlayo xafladda macnaha ugama soo qayb galayo sida macnaha hadda waxaan la ii yaqaan inaan ahay maamulaha dugsiga boardingka iyo macallin jaamacadda Gols dhiga labadaba kuma hadlayo waxaan ku hadlayaa xubin iyo mas'uul sare oo ka tirsan bahweynta Gatway oo isugu jirta maamul macallimiin iyo ardayda iyo waalidiinta anigoo ka wakiila فاكد والدهم بان هاي أنا والدك كوكيلة وحان مركو وجه الرئيس أن همبليو كل يلابا يبغادين بودر يا دفعتنا كقل شبيسي أما كبح ذي سكول كجيتواي سكندري أقوياء وإن لهلو أقوياء كاس أو مادي هي شريعة على وضع مكدسن وايو تصالح وحان يكون سينا يا halka badan dhalanteed ma fiicne dharaartii timaada dhaqsay kaaga socotaa dambiishii ku gaadhaa meel dheeyso loo waadho cadaynta aadmigu dhagariyaysan kugu ridin ogow dhaxalumaad helin inaad nimco dhurto aadmigu ku dhaataan annagu ka midnahay sida horwal inuu sheegay waa 13 SYL oo tafcadi koowaad iyo 26 June oo annaga marka xigta waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda macallimiinta ayada waxna soo baray maamulka Gatway Secondary School oo primary la secondary jooga dhammaantiinba waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka salaam gabagabadii waxa ashaada sharafyo lagu gudoonsiiyay mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay
munaasabadani ballaadhan ee ka socday jaamacadaha iyo sidoo kale dugsiyada sare. Dugsiga Gatway ayaa ah dugsi waxtar weyn ku soo kordhiyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, kaasi oo soo saaray arday tiro badan oo tayadooda waxbarasho aad u sarreyso, wuxuuna dugsigani ka mid yahay dugsiyada aadka looga daneeyo waxbarashadiisa magaalada Laascaanood. Maxamuud Aadan Askar, Maxamuud Guray, Som News TV, magaalada Laascaanood.